waxaad arkaysaa agaasime culayska aanu saarnay xitaa injineerada xafiisku ay saareen in xitaa quality sida loo ilaalinayo ninka dhan ee guriga dhisay in laga kasal gareeyay la dhimo soconayo marka xitaa tayada iyo qalabka la keenay injiinkana wadiga indhaha ku arkay waa 45 kVA solarka waa 72 xabo oo panel ba saaran marka oo high quality ah marka insha Allah taala waxaan ka rajeynayaa reer laanta marada in alaabta ilaashadaan oo dayactirtaan oo hagaajistaan waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa cidii deeqda soo bixisay African Development Bank ayaa lacagta soo bixiyay igad buu soo dhiibay igadna wuxuu sii dhiibtay safe children saas ku fulisay iyadoo ay baahidu ka timiday mar walbana mar haddaanay wasaaradda biyuhu iyo maamulka gobolku aanay baahida dadweynaha gudbin ma ogaan karaan hay'adu kuwii aan saaka soo furnay ee Aashacado iyo Cabdulqaadir Bahay ayrumaana wareejinay tababar baa nagu yeedhnay boorama dhamaantood sida biyaha loo maamulo iyo nidaamka loo maamulayna waa lagu soo tarin gareeyay uma hadcelinayna maadaama ceelkii laanta marada ee hay'adda shiif jiddaran ay noo qoday alxamdulillah ilaahay fadligiisa annaguna kiideen anfaca ee martaasi dalka iyo dadku ay ka faa'iideystaan ilaahay nooga dhigo waxa dhacday maalmo dhaweyd oo ceelka la qodayo oo cirki daay ina seminar la noo qaaday oo wasaaradda iyo hay'adda seefta seminar inay gasheen marka oo saw la nageliyay oo tababar la siiyay waxbaan fikiray sidii wax loo dhaqaalisan lahaa sidii biyaha loo dhowrin lahaa sidii wax loo maamuli lahaa wax weyn baan soo aragnay wax weyn baan noo soo kordhay waxa weeye maantana dawladda gobolka iyo hay'ad hadii la noo dhan yahay wixiina la noo wareejiyo waanu mahadnaqaynaa darayadana waan ka dhabanayna wixii hore la nagu arki maayo mashruuc yar maaha waa mashruuc weyn ku qodan yahay 120 waa ceel dheer weeyaan bamka ku jiraan ma karso bam weyn 12 ijiinka ma garaysa yalla 40 kVA taangi waa ka dhameystiran guriga waa loo dhisay deerkiina waa la raaciyay waa nacmad weyn ilaahay bixi weeyaan nacmada ma garaysa ilaahay ba inoo suurta galiyo Soomaa Allah inoo siyaadiyo anoo ma garaysa dhamaan xildhibaanada wada salaam iyo dhamaan safe children iyo hawlaha qabato wasaaraddu mar walba ma garanaysa hadii alla ku roon yahay garab iyo hiil bay isku yihiin maanta wuxuu dareemay waa mahadnaq in looga mahad celiyo intii ka geysatay maal iyo intii muruq ka geysatay iyo intii fikir ka geysatayba iyo intii waqti ku bixisaba in looga mahad celiyo alla ka sakow waxaan isleeyahay laanta marada malaha dawladdu way u dhagan nuglaato markay dawladdu shacabku u dhagan nuglaadaan dawladda iyo hay'aduhuna way u dhagan nuglaanayaan meeshaas maanta waxaan joognaa waxa weeye waa laanta marada waxa halkan ay hay'adda seef iyo wasaaradda horumarinta oo iskaashan ay ka sameeyeen ceelkaas oo ceel biyood ah loo baahnaa meeshan waxay ahayd hal ceel oo kaliya ku yaal halka magaalada dusheeda ku yaala kaasoo aan ku filayn population-ka yaala halkan aan ku filayn markay aragtay dawladdu aragtay waxa la gartay in ceelka labaad oo dhameystiran oo bamkiisii iyo injiinkii iyo solarkii iyo dhismihiisa wasaarahiin laga sameeyo halkan waa gariyaadkii waa meesha ugu badan dadka haraad ku laayay weeyaan ceelka laagta maradu ceel hore ayuu lahaa ceelka hore uu shaqeynayay magaalada iyo xoolaha si fiican buu ugu filaa haddana maadaama ay area inay tahay area maxay ahayd tooloy critical oo adag oo hadii ceelkaasi uu ka xumaado ay adag tahay sida source kale labaad oo biyo loo helo hay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ceelkan uu ku dhisay oo ugu lamaanaysay ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadle ceelkan wuxuu qodan yahay 120 mitir taqriiban bam koob iyo 10 ayaa ku jira solar 270 xaba ayaa ku xidhan injiinku waxa weeye 45 kVA waa hybrid system maalintina ceedda ayaa loo isticmaalayaa habeenkiina injiinka ayaa loo isticmaalayaa waa laanta marada oo aan ceelkii aan xadhiga ka jarayno annagoo degmadii iyo gobolkii iyo wasaaraddii iyo hay'addii filisayba dhammaan annagoo iskugu imanay ceelkiina uu dhameystiran yahay waxa la wixii agab u lahaa oo waliba laba mooteerkii iyo solarkii ay u dhameystiran yihiin ilaahay noo suurta galiyay baa mahad iska leh agaasimaha wasaaradda maruu waxaan ku leenahay maanta kullay wasaaraddu ilaa iyo degmada ilaa iyo gobolka ilaa iyo hay'adda waxaan ka wadag nin walba fikir buu ka soo geystay hanoogu
noogu badnaado muxuu ahaa badhasaabka gobolku annagoo qaranku noo soo wakiishay hay'ado kasta nooc kastoy tahay inaan dadka baahiyaha aasaasiga gaarsiino ilaahay fadligii waxaasoo nimcaynu haysanaa barwaaqadaasaynu ku jirnaa geelaa dhowr kuna neefee la sheegay halkaa ka cabbeeyey ya intaba ilahay baynu ugu mahadnaqaynaa dadaalkan halkaasaynu ka sii wadayna wasaaradda horumarinta biyaha iyadoo si gooniyaan ugu mahadnaqaya anigiyo ka guddoomiye ahaan waa wasaaradaha ii dhegan nugul bay ku jirtaa hargeysa marka aan tago wasaaradaha aanan inta badan ballan raadin ayay ka mid saaxiibkay boqorka iyo hay'adoodan waxba ku noqon maayo iyaga dushaan isku sidanaayo saaxiibada horumarkaasna marka Save Children ayay intaas kaga tagaya waxaan wax la wada leeyahay waa wax qaranku idii keenay sida la idinku keenayna uma maamushaan baa la idinka rabaa anagu ka wasaaradahan anaga oo fulinayna siyaasadda madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waajibaadkayaga gudanayna طبعا مسؤوليات gaara iyo xil gaara ayaanu iska saarnaa deegaanada ku teedsan xeebta Soomaaliland maadaama ay yihiin deegaano aad iyo aad u kulul oo cimiladoodu kulushahay biyo la'aan aan daqiiqad xamilaynin mar walba muhiimadda koowaad cid aanu siinaa waa iyaga waana naga go'an tahay inaanu mar walba baahi kasta iyo qayladaan ka soo yeedha deegaanada aanu u dhagan nuglaano waanu si gaara ugu tixgelina baahidooda way naga go'an tahay diyaarna waanu u nahay